munaasabadani ballaaran ee xilka lagu kala wareejinayay gudoomiyihii hore ee gobolka Saraar Axmed Cali Nuur iyo gudoomiyaha cusub ee haatan noo soo magacaabay gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax ayaa maanta ka qabsoontay gudaha magaalada Caynaba. munaasabadani oo ahayd mid si heer loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay agaasimaha waaxda gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland, maayirada magaalooyinka Caynaba iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. koorintii aanu gudoomiyaha cusub ee gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax aanu xilka la wareegnay waxa duleedka magaalada Caynaba si diiran ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka kan degmada Caynaba uqaal iyo waliba ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada Caynaba. dadweynahani oo ruuxayay caleemo qoyan isla markaana ku dhawaaqay ku dhigay yaraya ay ku soo dhaweynayaan badhasaafka cusub. waxaana munaasabada xil wareejinta ugu horeyn halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Caynaba, taliyaha qaybta bilayska, xildhibaano, uqaal, wax garad, haween kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub. gudoomiyihii horena sagootiyay waxaanu la sii sagooteynaa badhasaafkii hore Axmed Cali Nuur oo in badan runtii nala soo shaqeeyay, si fiicanna noola soo shaqeeyay. shaqadii fiicnaa oo gobolka la soo maray waxaanu leenahay jazaakallaahu khayran. badhasaafka cusub waxaanu leenahay adigu ducaad u baahan tahay maanta in ilaahay xilka kugu asturo intaad muddadaad joogtid. gobolka waa gobol ballaadhan sidaa la sheegay. badhasaaf qabyo badan buu leeyahay xagga dawladda oo ciidanka ku yar iyo dhulka ballaadhan waa leeyahay, oo taa hore waad nagala qayb ka qaadatay inaad ka hadashidba wixii qabyaa waanu ku sii qoraynaa, waynuna ku duulaynaa xukuumadii oo laga doonaya wixii qabyaa insha Allah bismillaahi kariim. inteena isku keenay inaan ka soo qayb galno xafladan ay labada gudoomiye xilka kuwa kala wareegayaan ee soo dhaweynta iyo xil wareejintiisa ku jirta. intaa ka bacdi mudada gudoomiye gobolka Saraar nabadgelyadiisu waa 100% maanta maraysa. dadweynaha gobolka Saraar waa dad maanta isku tashaday, uqaal haday tahay, maamul haday tahay, dhalinyar haday tahay, haween haday tahay. saaka halka waxa aynu isugu nimay ama aynu saaka oo dhan u taagnay soo dhaweyntii badhasaafkii cusba iyo sagootigii badhasaafkii hore Axmed Cali Nuur iyo badhasaafka cusub Cali Maxamed Faarax ayaynu u taagnay saaka. halkan waxaan salaan u marinayaa sidii fiicnayd ay saaka u taagnay ama aynu soo dhaweynay ardayda ururka naaw uqaasha golaha deegaanka laamaha madaxda dawladda. maanta inoo sharafa waxaynu soo dhaweynaa badhasaafkii cusbaa ee gobolka Saraar inagoo dhammaan haddaynu nahay dadweynaha gobolka Saraar, dhalinyaro, arday, waxgarad, uqaal, culimaadudiin, golo deegaan, golo inta waxa ku soo dhaweynaa gobolka. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay badhasaafkii hore ee gobolka Saraar Axmed Cali Nuur oo sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu xilka ku wareejiyo gudoomiyaha cusub. gudoomiyaha cusub ee gobolka Saraar oo dadweynaha reer Caynaba halkaasi kala hadlay ayaa ka mahadnaqay sida ballaaran lagu soo dhaweeyay magaalada Caynaba, waxaana uu bulshada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Saraar ka codsaday inay la shaqeeyaan. muddo dheer baa taagnaydeen cadeed aad joogtaan iyo soo dhaweyntana waan idinka mahad celinaya. laba qodob baan idin oranayaa oo keliya. halkaana waa laygu soo dhaweeyay Hargeysa, maantana waa lay soo dhaweeyay. taa waan ka mahad celinayaa, aad iyo aad baan uga mahad celinayaa. laba qodob baan ku soo gabagabeynaya muddo taagnaydeen. sidii loo sheegay horumarku bayska laga gala waa nabad, bayska laga gala horumarka waa nabad. gobolkana idinku idin sugayaa horumarkiisii idinku idin sugayaa insha Allah bismillaahi kariim. waxaan idinka sugayaa oo idinka saadaalinayaa inaad noqotaan kuwii gobolkan u dhashay ee horumarkiisa ku daali doona. ugu dambeyntiina agaasimaha waaxda gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa si rasmi ah xilkii ugu kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee gobolka Saraar Axmed Cali Nuur iyo gudoomiyaha cusub ee haatan loo soo magacaabay gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax. Salabaan Cilmi Saciid, Salabaan Kiiko, TV-ga caalamiga ee Kalsan, Caynaba.